بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، كسر لهذا برنامج عصب وعن وطلع قلني إن أنكو براروجنو أرضي الصوماليات ما دام أسود لهذا حل امتحاناتك. برنامج كمان يعيسو وحنا خندنا تربية أرضي ذا وحنا لهان دونا دور حلقة أم دور فدي حلقة كوات وحكو صاب سنان دونا أرضيga iyo waalidka xiriir nooxee ka dhaxeeyo xilliga imtixaanaadka maxaa laga rabaa waalidka marka ardayga ama wiilkiisa ama gabadhiisa imtixaan uu soo dhow yahay. run ahaantii waalidiinta qaar waxay u maleeyaan in canuga tarbiyadiisa ay tahay kaliya in raashin la siiyo, gurigana loo soo dhigo, dhalo inuu fiirsado, jiif fiican loo soo dhigo, dhar qurxoon loo soo gado. saas way ka duwan tahay tarbiyada. maxaa yeelay canugaaga waxbarashadiisa haddaad kaliya macalinkaad u dhaafto ama iskuulkaad u dhaafto oo isla xisaabtan adag aadan gelin adiga iyo wiilkaaga ama gabadhaada, ogow meeshaasi waxaa ka dhici doono khaladkaasoo ah canugaaga xitaa ma la socon kartid imtixaanaadka dhibcaha uu ku keenay, xitaa ma la socon kartid in imtixaanka uu si sax ugu qayb galayo in kale. waalidiinta waxaa waajib ku ah inay la socdaan caruurtoodii waxbarashadooda, khaasatan markii uu soo dhawaado xilliga imtixaanka waa inay ardayda ama ilmahooda ay ku baraarujiyaan inay waxyaabaha xunxun ay ka tagaan. su'aal ahaan guriga oo kale haddii uu jiro jadwal oo markii hore ay fiirsan jireen dhalooyinka ama geemam ay ciyaari jireen oo kale, waxaa laga rabaa waalidka in xilliyadaas oo kale in geemamka laga xareeyo caruurta, waqtiyada telefishinada ay fiirsanayaan laga xakameeyo oo loo yareeyo, ardayda xunxun ee raacayaanna laga reebo. maxaa yeelay canugan waqtiga ku dhamaaday, adigana lacag baa ka baxday, waqtiga waxa u bixisay waxay tahay in canugaaga uu noqdo canug fiican, على الأقل شهادة uu soo qaadanayo, darajada ama average lagu soo qorayo inuu ahaado darajo fiican. maxaa yeelay jaamacadaha adduunka qofka markii waxbarasho uu raadsanayo darajooyin qaar waxaa jira oo qofka xitaa jaamacad aan lagu aqbali karin. qofka marka inuu 4 sano dugsi sare soo dhigto kadibna imtixaan uu galo, imtixaankiisana uu keeno dhibco hoose, waxaa keeni kara macalinka ka gaabiyay ardaygaasi ama macalinka inuu dadaalay kadibna waalidka uu gaabiyay. xiliyadan imtixaanaadka waalidiintu waxaa laga rabaa inay xiriir toos ah la yeeshaan maamulka dugsiga iyo macallimiinta ee wada shaqeynka wada dhaxeyso. ardaygaasina haddii macalinka uu xoog saaro, waalidkana uu xoog saaro, waxaan rajaynaynaa imtixaanka inuu ku guuleysto. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.